aan diidana waxaa weeyo xaafadda islii in gebigeedaba la xiro xaafado kalea laga arkay waxaa lagu arkay xaafadda kawangware xaafadda islii in la xiro waan ogolaanay oo maadaama ay citizens community iyo xildhibaankaba ay ogolaadeen in la sameeyo mass testingkana markii la sameeyey in dadka laga qaado dhacaan laga qaado la baaro in dhacaan laga qaado aniga kula hadla waa laga qaaday waxaa noqda negative waa shay muhiim laakiin xaafadda islii waa xaafad nairobi oo idil ayaa u imaataa inay wax ka iibsadaan marka dadkii laga qaaday dad yar oo waxay noqdeen soomaalida way ku yar tahay laakiin sheekada hadda waxaa looga dhigay inay tahay in islii ay tahay meesha xudunta cudurka dawladda waan la hadalnay saaka moorasha waa la furayaa ganacsiga waa la furayaa wixii xunbo waa islii sheekadaas ayaan ka soo horjoodnaa aadan barre dawladda aad eedaynayso adigana waad ka mid tahay weliba ragga ugu sarreeya xagga xukunka dalkaad ku jirtaa dawladda waxaan ma u sheegtay oo ma tiri dawladda waa in la eedeeyo horta xildhibaan aan ahay midda labaadna dawladda waan u sheegnay ganacsiga maanta waa la furay booliiska waa loo sheegay inay dadka ku xadgudbin waxaa kaloo la sameeyey in muddo 7 beri kabacdi dib loo fiirin doono laakiin midda aan diidayno waxaa weeyo islii soomaali keli lagama qaado inteeska soomaalida way yareed marka sheekada laakiin ay mediaga iyo social media la geliy waxaa weeye inay tahay islii ayay noqotay meesha xuduntii cudurkan COVID-19 magaalada Nairobi taas ayaan haddaan ahay mas-uul Soomaaliyeed aan diidanahay oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda amniga aan u sheegnay maantana alxamdulillah ganacsatada iyo xildhibaankaba labadaba way la kulmeen mas-uuliyiinta Nairobi marka maanta in moorashii iyo ganacsiga la furo waa lagu tashaday laakiin maxaan diidaynaa annaga marka ani hadda tankir kama hadlay fikradda tahay in islii ay tahay centerka covid aadan barre marka laga soo tago in ganacsiga la furay xaafaddii haddaanan la geli karin lagana soo bixi karin maxay micnooy leedahay marka dawladda ma kala hadasheen in meeshan si kale xal loogu raadiyo oo magaaladii xaafaddii laga go'doominayo la joojiyo may horta catosh adigaba waad og tahay adduunweynaha ayaa lockdown lagu sameeyey magaalooyin waaweyn iyo ganacsiyo waaweyn oo adduunka ayaa lockdown lagu sameeyey Nairobi metropolitan ayaa laga bixin marka markay isqabsadaan ganacsiga iyo in la badbaadiyo ummadda muhiimadda waxaa la saaray in la badbaadiyo ummadda nafta waa in la badbaadiyo marka dawlad kasta ama dawladda Kenya haato ama dawladda Mareykanka haato horta awalan maxaa mas-uuliyad u saaran dawlad kasta dastuurka laga fiiriso waxaa weeye badbaadi nafta kabacdi aad badbaadina hantida iyo xoolaha ay bulshada leedahay waana 14 beri 7 beri kabacdina dibaa loo fiirin waxaa la fiirinayaa siduu numberka oo COVID-19 positiveka siduu ahaanayo marka sidii maalinta hore iyadoo dadka lagala tashanin xaafadda islii bandowga loogu soo riday maanta dawladda dib ayay isku noqotay iyadoo la tashanayso ganacsatada iyo mas-uuliyiinta tilaabo ayaa maanta la qaaday